dooxa weyn ee caasimadda Hargeysa waxaa si rasmi ah uga bilowday ololaha lagu nadiifinayo dooxaasi. ololahan ayaa waxaa horkacaya duqa caasimadda Hargeysa Cabdirakiin Axmed Mooge Liibaan waxaana ka qayb qaadanaya shaqaale weynaha dawladda hoose gaadiidka kala duwan ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa. sidoo kale waxaa halkan ku sugan bulshada qaybaheeda kala duwan oo saakay hirti waa bari halkan isugu yimi si ay uga qayb qaataan nadiifinta dooxa caasimadda Hargeysa. ololahan ayaa waxa uu ka bilowday bartamaha dooxa gaar ahaan biriijka weyn ee caasimadda Hargeysa. waxaa laga yaabaa in ololahani uu saakay gaaro biriijka beerta xurriyadda iyo biriijka saldhigga New Hargeysa. waxaanu halkan ku wareysan doonaa qaar ka mid ah bulshada iyadoo ka qayb qaadanaysa ololaha nadaafadeed ee ka socda dooxa caasimadda Hargeysa. aanu aad ugu faraxsannahay arrintan oo duqa iyo dhammaan dawladda hooseba ay wada horkacayaan ee duqna ku dhawaaqay. waxaanu leenahay arrinka xoojiya maanta kaliya ha ka dhigina inoo wada annaguna maciina iyo garabkiina ayaanu nahay insha Allah. halkan waxaan u yimi inaan nadaafadda ka shaqeeyo muwaadiniinta reer Soomaaliland baan ahay guddida nabadgelyada gacan libaax aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan dalkayga iyo dadkayga wax u qabto. wallahi saaka aad iyo aad bay farxad weyn bay tahay markaan arkay dooxii Hargeysa ee qurunka weynaa oo la nadaafadeynayo waan ka qayb qaadanaa insha Allah guul baan rajaynaynaa mustaqbalkayga waan ka gaarina. dhalinyaradu waa xooga kaliya loo baahan yahay saakay wax shaqo ma qabatay in badan aad iyo aad ilaa xagaas soo inay fooqa ilaa xagee ka howlgashay saaka fooqa chachkan ka soo bilownay halkan biriishkii maalinkan taaganna waa biriishkii waa in islaam kasto wareeda maxaan hadlaan xiiqa haddaan arkay islaam ku shusubada islaam biyaha ku shubisa wadaya ina yarba haddaan arkaan idhaahdo ma waa ku sida waa cashuurteeni maxaa ka galay baa leeyahay markaasaan aniga dadka kala idhaahdo dadka kala dhex galaana tawarintooda maxaa ka galay baa leeyahay dawadankiba maxaa ka galay buu inaga yahay maxaynu sameynaa marka Allah sida waxa laga bedelo madaxda laba shaqeeyo saaka shantii baan imaaday aroornimo san maayarkayga iyo dalkayga uu la shaqeeyaan wuxuu ugu qabto maanta waxaan leeyahay maanta shacabka Soomaaliland maanta ka hor maayar adag iyo maamul lama helin. waxaa dhinacayga taagan xogayaha fulinta dawladda hoose caasimadda Hargeysa mudane Siciid wuxuu ka mid yahay mas'uuliyiinta saaka ku soo kalahay in ay halkan ka shaqeeyaan oo ah dooxa caasimadda Hargeysa. سعيد بل كورن ساكي هولقلكن halkan aad ka fulaysan. bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa arkaysaan shaqada socota sidii ballankeenu ahaa maanta in dooxa la nadiifiyo eeriyadii aanu calaamadsanay ayaanu shaqadeenu ku guda jirnaa dhammaan halka waxaan uga mahadnaqaynaa dadweynaha magaalada Hargeysa ama caasimadda ku nool oo runtii si xamaasad leh shaqada u wada haddii caasimadda dooxa loo hagaajiyo ama bilicda dooxa kor loo qaado ay ka dhigan tahay in caasimaddu wax badan ay isku bedeli doonaan meelaha ugu muuqda xun bay ahayd insha Allah saacadaha soo socda muuq wanaagsan bay yeelan doontaa waxa bac yaala iyo waxa qashin yaalana waynu ka qaadi doonaa. xogaye in badan baad ku guda jirteen saakay dooxan caasimadda Hargeysa maxaad kala kulanteen dooxa eedan hore qorshaheedii ku jiray runtii waad arkaysaan waxaan kala kulanay runtii waxyaabo badan oo aan filaynin oo ismaana lahayn qashin inta leeg baa yaala ismaana lahayn waxaan qashin ugu tageysaan laakiin insha Allah taala waxaan rajo weyn ku qabaa dadkeenu si maanta u soo kaceen in qashinkaas meesha uu ka bixi doono nadiif noqon doono bataaxi la arki jiray dooxa Hargeysa ma uu yeeshay nooga sheekin direen ama cala saarkii ka dhacay oo kale ee loo jeedo dooxa Hargeysa la isku yimayn jiray in halkay noqon doonto meel la isku yimaado oo runtii hablaha la isku weydiisto xafladaha lagu dhigto. waxa isaguna halkaasi hadal ka jeediyay isla markaasina ka hadlay ololaha saaka ka bilowday dooxa caasimadda Hargeysa Cabdirakiin Axmed Mooge duqa caasimadda Hargeysa. saxaafadda waxaan u sheegayaa halkan ujeedadaan ka leeyahay waxa weeye meeshani waxay dooxa kaga beegantay faras magaalaha ama bartamaha magaalada waxa mara biriishka ugu weyn iyo labada wadada ka timaada New Hargeysa ee beerta sayidka iyo wadada kale ee ka timaada beerta xorriyadda waa magaalada bartankeedii weeye isha bini aadamku ma qaban karto dooxu inuu soo ahaado waxaanu doonaynaa marka waa qorshayaashu waa mid dhow iyo mid fog horta marka hore inaanu qashinka yaalo horta ka qaadno dadka qashinka keenayna wax ka qabanno ilaha uu ka soo baxayaan qudunkan iyo biyahan uraya iyo qashinkan inaanu ka hortagno sharciga marka wax kaga qabanno talabaadna waxa weeye in mustaqbalka fog insha Allah taala dooxani uu ku soo noqdo sidii uu ahaan jiray
oo ay noqoto meel qurux badan oo biyaha yaalla biyo nadiifa yihiin oo dadku galabtii iskaga lugeeyaan qaar kubad iskaga ciyaaraan qaar iskaga dhex nastaan carruurtu iska dhex yaayaacdo waayo hargeysa ma haysato meel bannaan oo magaalada bartankeeda ku taalla oo intan dooxu inoo leegaya inoo leeg markaa public spaceka ugu weynaynu haysanaa waa dooxa hargeysa weeye markaa sidaasuu dooxa hargeysa uu yahay mudnaan marka insha allahu tacaala qorshaa nooga dejisan maalin walba iyo wiig walba waxa la qabanayo caawa ay xitaa tahay shaqaa socon doonto insha allahu tacaala markaa dooxani ha iska rafato laakiin halka loo socdo iyo ujeeddada laga leeyahay dooxan in la nadiifiyo waa la gaadhayaa waxaan shacabka somalilan ugu baaqayaa oon uga faa'iidaysanayaa mikrofoonada badan ee hor yaalla dhaqankiina wax ka bedela habdhaqankiina wax ka bedela qofku qashinka ha dhigo meel ku habboon annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaannu meeshaad marayso iyo waddadaad marayso inaannu kaaga samayno meelaad qashin ku riddo sidoo kale dooxa hargeysa bulaacad maaha suudi maaha waa ragga saxarada iyo kaadida la soo doonanayo ka daaya sharci baa idin qaban doona hadhow baad odhan doontaa makaadi baa laygu soo xidhay iyo xaar waar ka daaya cabdiqaadir cabdilaahi nuur iyo cawil cabdi kaahin telefishinka qaranka somalilan dooxa weyn ee magaalada hargeysa